sida cadceedda waa bari u soo iftiinto aroor walba ayuu madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo hadba yidadiilo hor leh horumar ballaaran higsi fog han wadaniyadeed ilaalinta hantida ummadda siyaasad ku dhisan ixtiraam wax wada qaybsi iyo dano la wadaago ayuu ku hoggaamiyey Soomaaliya tan iyo markii eebbaheen uu makansiiyey in uu hoggaanka u qabto ummad ay muddo dheer halakeeyeen colaado ahli ah abaaro amni xumo iyo musuqmaasuq aan meelna loogu soo gamban Soomaaliya hadda waxa ay samaysay horumar dhanka siyaasadda arrimaha dibadda ah iyada oo xubin ka noqotay ururo iskaashi ah iyo madallooyin caalami ah khubaradeeda arrimaha dibadda ayaa dejiyey siyaasado aan cadaawad u abuurin hanaanka dowladnimadeenna dhisaya balse horseeda oo keliya in dunidu ay garab istaag u muujiso kuna tixgeliso gaaridda go'aamadeeda masiiriga ah iyo masaalixdeeda caalamiga ah waxaana kordhay haatan tirada dowladaha caalamka ee daneeya inay iyagu xiriir sokeeye la yeeshaan Soomaaliya sanadkan sii idlaanaya haatan ee 2021 madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxa uu aqbalay in ay Soomaaliya danjiriyaal ka noqdaan tiro ku dhow 15 safiiro oo ay dalkeena u soo dirsadeen dowlado ku kala yaala qaaradaha kala duwan ee caalamka waxa uu ahaa sanad micno weyn ugu fadhiya hanaqaadka hanaankeena diblomaasiyadeed ee ka duulaya baahida dadkeena ee ku wajahan la macaamilka dowladaha caalamka kaadiriinta salka u dhigay tiirarka siyaasaddeena dibadda iyo madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed waxa ay si dhab ah u xambaareen fariinta shacabka Soomaaliyeed ee ku wajahan daneeyayaasha caalamiga ah oo ay ku jiraan dalal ay dano badan kala dhaxeeyaan dalkeena Soomaaliya ahmiyad gaar ah ayuu u lahaa sanadkan maadaama ka sugo xaqiijinta danaha diblomaasiyadeed ee aan ka leenahay caalamka oo sidoo kale xiriirkoodu saameyn togan uu ku yeeshay guulaha dowladda Soomaaliyeed ay ka xaqiijisay salowdhigida nidaamka nidaam xaqiijiyay salowdhigida nidaam dowladeed oo isagu u adeega dadkiisa gaar ahaan marka ay timaado dhinacyada ammaanka kobcinta dhaqaalaha siyaasadda horumarka arrimaha bulshada iyo wadajir ula dagaalanka argagixisada caalamiga ah iyo waliba musuqmaasuqa tobankii bishii Janaayo sanadkan 2021 madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga ka guddoomay danjiraha cusub ee ururka jaamacadda carabta mudane saalax axmed junayn iyo danjiraha dalka Switzerland mudane Valentin Salweger ururka jaamacadda carabta oo ay ku bahoobeen 22 dal oo uu xubin firfircoon ka yahay dalkeena waxa aan wadaagnaa xiriir soke oo ku dhisan walaaltinimo iskaashi wax wada qabsi waxayna kaalin muuqda ku lahaayeen dadaalkii dib loogu yegleelayay dowladnimadeena Soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa la wadaagay danjiraha saalax sida ay uga go'an tahay Soomaaliya horumarinta xiriirka soo jireenka ah ee aan wadaagno muddada dheer si lamida madaxweyne farmaajo waxa uu la wadaagay danjiraha Switzerland fursadaha muhiimka ah ee labada dal ay uga faa'iideysan karaan xiriirkan tobankii bishii Maarso 2021 madaxweyne farmaajo ayaa warqadaha aqoonsiga danjirnimo ka guddoomay safiirka cusub ee boqortooyada Ingiriiska Marwo Kate Foster UK oo iyadu ka mid ah dowladaha waaweyn ee caalamka ayaa hagaajinta xiriirka aan la wadaagno waddanka Ingiriiska waxa uu ahmiyad gaar ah u leeyahay Soomaaliya maadaama waddanka Ingiriiska uu martigeliyay kumanaan kun oo dadkeena ah kuwaas oo iyagu ka soo hayaamay Soomaaliya intii haddaba lagu guda jiray waayihii adkaa ee uu soo maray waddankeena
danjire Kate ayaa iyadu dhinaceeda muujisay sida dalkeedu si la mid ah Soomaaliya uu danaynayo xoojinta xiriirka qotada dheer ee uu la leeyahay waddankeena Soomaaliya. saddexdii bishii May sanadan 2021 qasriga madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya ayuu madaxweyne Farmaajo warqadaha aqoonsiga uga gudoomay danjiraha cusub ee Ethiopia u fadhiya dalkeena mudane Cabdifataax Cabdullaahi Xasan. Soomaaliya iyo Ethiopia waxa ay wadaagaan xiriir ku dhisan daris wanaag, iskaashi, is-ixtiraam, qarannimo iyo weliba ka wada shaqaynta kor u qaadida heerarka nololeed iyo dhaqaale ee shucuubta geeska Afrika. 26 maalin kadib dharaartaasi madaxweyne Farmaajo waxa uu madaxtooyada qaranka warqadaha aqoonsiga uga gudoomay safiirka cusub ee dawladda Hindiya ay u soo magacowday waddankeena Soomaaliya mudane Fernand Kumar, kaas oo isagu ka marqaati kacay dadaalada miro dhalay ee ay dawladda Soomaaliya ka xaqiijisay xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dalalka caalamka ee ay danwadaagta la tahay Soomaaliya. 23 bishii August isla sanadkan 2021 madaxweyne Farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay madaxtooyada qaranka kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga safiirada cusub ee dalalka Tanzania mudane Dr. John iyo sidoo kale waddanka Angola. danjirayaashu waxa ay dhinacooda muujiyeen ahamiyadda ay iyagu leedahay ka mid noqoshaha bahda danwadaagta la ah waddankeena Soomaaliya. 7 September 2021 madaxweyne Farmaajo ayaa ka gudoomiyay warqadaha aqoonsiga safiirka cusub ee Midowga Yurub Marwo Tina Intelman iyo safiirka dawladda Shiinaha mudane Sanchu. 16 September isla sanadkan 2021 waxa uu madaxweyne Farmaajo ka gudoomay warqadaha aqoonsiga safiirka cusub ee ay Sweden u soo magacowday waddankeena Soomaaliya. 2021 isla bisha September madaxweyne Farmaajo waxa uu warqadaha aqoonsiga ka gudoomay safiirka cusub ee ay Nigeria u soo magacowday Soomaaliya iyo sidoo kale safiirka cusub ee dalka Indonesia. halka 9 November ee isla sanadkan uu madaxweynuhu kaga gudoomay warqadaha aqoonsiga safiirka cusub ee ay Finland u soo magacowday waddankeena Soomaaliya. xoojinta xiriirka diblomaasiyadda iyo iskaashiga dalalkooda kala dhaxeeya Soomaaliya ayuu kala hadlay madaxweyne Farmaajo dhammaan safiirada cusub ee dalalka Masar iyo Norway oo uu ka qaabilay madaxtooyada qaranka December 15 isla sanadkan 2021. madaxweynuhu waxa uu dhammaan la wadaagay safiirada guulaha la taaban karo iyo weliba horumarada ballaaran ee ay dawladdeena federaalka ee Soomaaliya ku tallaabsatay.